Waxaan rabaa inaan dadka u sheego ruuxna inuusan qaadan karin xaqa reer Masar. Qofkii raba inuu arrintaasi tijaabiyo ha tijaabiyo. Farxad iyo reereen ka muuqata shaqaalaha injineerada Itoobiyaanka ah kadib markii ay dhammaystireen buuxinta heerka labaad ee webiga Niil. Wasaaradda Waraabka Itoobiya ayaa tiri roobabka xooggan ee da'aya ayaa dedejiyay oo suuro geliyay in la buuxiyo heerka labaad ee biyo-xireenka, kaasi oo hore loo qorsheeyay inuu dhaco bilaha Yuulyo iyo Agoosto, iyadoona caddeysay in guusha arrintani ay ka dhigan tahay in la helay biyihii loo baahnaa si looga shaqaysiiyo 2 koronto-dhaliyo oo waaweyn. Itoobiya ayaa hore u joojisay buuxinta heerka labaad ee biyo-xireenka xilli uu marayay 3 bilyan oo mitir kiyuub oo biyo ah, taasoo ka dhigaysa wadarta guud ee biyaha la kaydiyay sanadkii hore ilaa 8 bilyan oo mitir kiyuub. Waxaa la filayaa sanadaha soo socda in sanadkiiba la kaydiyo 10 bilyan oo mitir kiyuub oo biyo dheeraad ah 6 sano ee soo socota, si loo dhammaystiro 74 bilyan oo mitir kiyuub oo biyo ah, taasoo ah xaddiga ugu badan ee biyo-xireenku uu qaadi karo. Laakiin weli waxaa jira fursado lagu wada hadli karo kadib kulankii Golaha Ammaanka ah, maxaa yeelay ilaa hadda Golaha Ammaanku ma caddeynin aragtidiisa dhabta ah ee kama dambaysta ah ee arrintani. Itoobiya ayaa hore u ogeysiisay Masar iyo Suudaan inay buuxinayso heerka labaad ee biyo-xireenka. Labada waddan ayaa arrintaas uga falceliyay inay tahay xadgudub qawaaniinta iyo sharciyada caalamiga ah, waxayna dalbadeen heshiis cadaalad ah si loo buuxiyo loogana shaqaysiiyo biyo-xireenka. Waxayna Golaha Ammaanka u gudbiyeen qaraar ku saabsan biyo-xireenkani, iyagoona adkeeyay in ay u furan tahay tillaabo kasta haddii Golaha Ammaanka uu ku fashilmo inuu soo saaro bayaan rasmi ah.